nin yahow haddaad doonaysid inaad guursatid gabarh turkish ah arrimahan maskaxda ku hay annagu haddaynu Soomaali nahay xiriirka Turkiga aynu la leenahay baryihii dambe waa mid ka duwanaa caalamka intiisa kale dhinacyada kala duwan midka dawladnimo iyo midka dadnimo aad buu u fiican yahay ninka Soomaaliga waxa laga yaabaa mararka qaarkood inuu niyeysto naawilo inuu haweeney Turkiya gacanta ku dhigo laakiin intaada guursan arrimahan ka fakar macluumaad ayaynu ka siinaynaa haweeneyda Turkiga u dhalatay arrimahan ka ogow haweeneyda Turkiga intaada guursan ka hor haweeneyda Turkiga u dhalatay waxay kulmisay qurux noocyadeeda kala duwan waxaa lagu tiriyaa haweenka Turkiga u dhashay haweenka caalamka ugu quruxda badan waxay isku dartay quruxdii reer galbeedka gaar ahaan Yurub iyo quruxdii bariga dhexe bimacnaa Carabta quruxdaasay kulmisay haweeneyda Turkiga haweeneyda Turkishka ah dhalmeedkoodu waa 28 baynamaa lagu xisaabiyo marka ay guursanayso da'da ay ku guursanayso inay tahay 23 dawladda Turkigu ma ictiraafto mana aqoonsato guur kasta iyo meher kasta oo ka baxsan qaanuunka dawladda iyo saxiixeeda يعني أنا قاعد مركز اسميرسانينو وذا لو يرى مخراتي لو يرى ولي قال لو يرى حفلة على القبصة انت بس لكن تركيا مركز اللي سكورسانيو وراقو إن الدولة كايستا صحيح هذه كو قرنتاي قور أن دولة الصحيح هذه قانون كذا صومرين قور شرعي معهن قانون كتركيا وحالي إلى جنسية دا أما دلشة تركيا إنها هشيد aad bay u fududahay markaad qabtid haweeney Turki u dhalatay laakiin shardiga kaliya u yaala wuxuu yahay inuu guurka jiray 3 sano wixii ka badan haddaad gabar Turkiisa 3 sano wixii ka badan qabtay dhalashada Turkiga si sahlan baad ku helaysaa haweeneyda Turki u dhalatay waa haweeney ilbaxa oo wax baratay inay shaqaysatay awooda oo nafteeda cuskato oo ay ku tiirsanaato iyadoo u baahan wax dhinaca xoolaha Turkiga haweeneyda markii la furo oo guur ay soo marto waa inay sugtaa muddo aan ka yarayn 3 bilood iyo wixii ka badan intii guurkii hore iyo hawlihiisa dhamaanayaan kadib baa loo saamaxaa ama loo fasaxay inay guur labaad samayso guurkeedii hore 3 bilood kadib wixii ka horeeya lama ogola haweeneyda Turkiga u dhalatay waa mid haysata masaaxo aad iyo aad u weyn oo xuquuq ah taasoo mujtamaca dhexdiisa ka muuqata waa haweeney xuquuq leh oo nidaamkii dawladnimada xuquuq leh oo shacabka xuquuq leh oo dadnimadeeda ay ka muuqato dalkeeda gabadha Turkiga u dhalatay marka la soo doono yaani ninka ama wiilku uu soo doono waxay u keenaysaa wiilkaas ama jacaylkeedaas qaxwadaas haddii cusbada laga badiyo macnaheedu waxa weeye kuguma qanacsani kugumana waafaqsani guurka haddii qaxwahaas cusbada lagu daray uu yar yahay yaani sida normalka caadiga la yaqaan uu yahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay sidaas oo kugu waafaqsanahay guurka iyo doonitaankaada yaani waa calaamad marna lagu garto diidmo marna lagu garto yeelmo waxaan filayaa inay wax ka ogaateen haweeneyda Turkiga u dhalatay haweeney shaqaysata weeye inkastoo ragga Soomaaliya qaarkood ay jeclaan haweeney shaqaysato wax barato waxay ku leeyihiin haweeney aqoon leh isku guursan dikra ku gumaysanaysa yaani arrimo noocaas oo fikrada khaldan oo xirxiran oo waa hore jiray qaarkood inay wataan waa laga yaabaa laakiin rag ilbaxa waa jiraan oo mararka qaarkood dumarka noocaas jecel inay Turkiga aadaan baa laga yaabaa qaarkood inay guursadeen baa macquul ah aad baad ugu mahadsantihiin sida nolol socotaan waxayna ka fiirinaa waxa inaad sii faafisaan channelkeena ku soo biirtaan si waxyaalaha cusub ee dambe ay ku soo gaaraan jazaakumullahu khayran